السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن دمان أصحابتنا وحرن طبعا waxaa inoo dhamaaday sanadka 2021 waxaana inoo bilaabanaya ama bilowba ah baan dhihi karaa sanadka cusub ee 2022 waana sanad runtii aan dhihi karno waxa uu xambaarsan yahay arrimihiisa iyo amuurihiisa u goonida ah dabcan qaar badan oo annaga naga mid ah waxay sanad walba sameystaan qorshayaal ay doonayaan inay hirgeliyaan inta uu sanadkaasi socdo ama wax cusub oo aynan horay u sameyn jirin laakiin ay rabaan inay sanadkaas bilaabaan qof walba naga mid ahina waxa uu sameystaa ama dabcan asteystaa qorshayaal ama nidaamyo uu markaas rabo inuu noloshiisa ku horumariyo ama uu u arko inay noloshiisa markaa horumarinayso marka su'aasha ayaa waxay tahay ma laga yaabaa in ay qorshayaashaas ka mid yihiin inuu tusaale ahaan qofku caafimaadkiisa toosiyo inuu wuxuun xoogaa kharash akaydsado inuu guursado inuu quraanka xifdiyo inuu luuqad barto iyo wixii la mid ah ama xitaa suurtagal ma tahay in aad go'aan ku gaartay joojinta balwad aad lahayd ama dabeecad aan wanaagsanayn oo aad doonayso inaad iska dhaafto ama aad joojiso hal shay inaad ogaataana waa lagama maarmaan waa dejinta qorshayaal aan ujeedkoodu caddayn ama la hubin taasoo keenaysa in aad aakhirka ama ugu dambayn aad ku fashilanto maadaama uunan caddayn qorshaha markii hore aad dejisatay taasoo ay sabab u tahay inuusan markii horeba caddayn amaba qeexnayn qorshaha aad dejisatay uunan ahayn qorshe markaas cad oo meel ka bilaabanaya meel la ku eg waqti la qabanaya leh oo cayiman tasiilaadkii lagu qabanayay leh inuun ahayn laakiin uu ahaa qorshe aad si guud isaga qaadatay taasina wax suurtagal ah ma aha dabcan wax walba oo qorshaha sanadkaaga cusub yahay waxaa jirta hal arrin oo aadan u hirgelin karin la'aanteed arrintaas oo ah in aad hesha dhiirigelin laakiin sida aan dhammaanteen ka warqabno taasi si sahlan kuma timaado dabcan dadka qorshayaasha sanadlaha ah dejista haddana ku guulaysta ayaa lagu qiyaasaa 8% dabcan khasabna ma aha in aad tiradaas adigu ka mid noqoto laakiin waa ku muhiim marka loo eego geediga iyo safarka nolosha ee aad ku jirto haddaba halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa 5 hab ama 5 arrimood oo aad uga hortegi karto in aad qorshayaashaada ku guuldaraysato Allah subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa in uu guud ahaanteenba sanadku inoo wacnaado marka haddii aan 5 arrimood ayaan horay idinku soo sheegay aan kor istaagno annagoo qodob u kor istaagayna una falanqaynayna tan koobaad waa inaad qorshahaaga meel hoose ka bilowdaa oo aadan ka bilaabin meel sarreysa ama meel weyn aadan ka bilaabin taas waxaan uga jeedaa meel hoose oo macquul ah ka bilow kadibna si tartiib ah ugu sii soco in qorshayaal macquul ah ama la qaban karo aad samaysato waxay horseedi karaan fursad ah inaad guulaysato inaad guusha xaqiijiso ama ugu yaraan haddaadan xaqiijin xataa guusha aad u dhawaato qayb ka mid ah dhibka ina haysta waa inaan inteena badan dejisano qorshayaal waaweyn ama ina suurtagal ahayn in la qabto ama markaa la qaban karo adoo og inaadan qorshahan fulin karin ayaa haddana waxaa qabsanaysaa qorshe weyn oo inaan markaa kuu saamaxayn duruufaha markaas ku haysta ama duruufaha marka aad ku jirto inaad qabato qorshahaas oo ay adag tahay dabcan inay suurtagalaan inaad qorshahaaga wax yar ka bilowdid waxay kuu suurtagelinaysaa inaad ugu dambayn wax ka sii weyn uga sii gudubtid tusaale ahaan sida fidrada ah ama koonkani ku dhisan yahay wax walbaahi waxay ka bilowdaan meel ayagoo marxalado iyo heerar kala duwan maraya intaa kadib ayaana si tartiib ah natiijadooda loo arkaa tani micnaheedu ma aha in ay qasab tahay dejinta qorshayaal yaryar laakiin waa inaad iska ilaalisid in ay qorshayaashaadu noqdaan kuwo culus oo waqti dheer kaa qaadanaya sababtoo ah markii si dhab ah loo eego isbedeladu waxay u imaadaan si tartiib ah ayagoo waqti qaadanaya qodobka labaad waxaad u baahan tahay inaad meel diiradda saarto ama qorshayaashaadu ay yihiin kuwo scope leh kuwo xadidan kuwo meel ku eg oo aysan noqon kuwo iska yaacsan ama firiqsan ama wixii kugu soo dhacaba aad qorshayaashaada isaga darsatid ka fikir keliya waxa saxda ah ee aad damacsan tahay ama aad doonayso inaad samayso meesha aad ku samaynaysid iyo waqtiga dabcan aad ugu talagelaysid inaad samaysid inta badan waxaan qorshayaal dejisanaa inagoon fikir sax ah ka haysanin qaabka aan wax u fulinayno waana muhiim in aad qorshahaaga si dhiibli ah u faahfaahisid adiga oo weliba qodob u kor istaagaya tusaale ahaan in aad tidhaahdo goob jirdhis ayaan aadayaa galab walba oo sabti ah ama tidhaahdo luuqad ayaan baranayaa maalmaha talaadada arbacada iyo khamiista waxay ka fiican tahay in aad si guud u dhahdid goob jirdhis ayaan aadayaa ama luuqad ayaan baranayaa tusaale ahaan qaabkaas oo kale inaad u dhahdid ayay ka fiican tahay marka aad sidaas wax diiradda u saarto waxay ka dhigan tahay in aadan fikradda keliya ku ekayn ee sidoo kale haysatid sidii aad u qaadi lahayd tallaabada hirgelinta qorshaha markaa aad leedahay qodobka saddexaad dhiso ama samayso wax taageero kuu noqda ama si kale haddaan u dhigo dhiirigelin kuu noqda in aad qorshahaaga ku soo bandhigtid dadka dhexdooda waxaan ula jeedaa inaad heshid dad kale oo qorshahaaga oo kale damacsan taasina dabcan waxay ku siinaysaa dhiirigelin aad u weyn
waxayna micno ahaan noqon kartaa in aad dabcan qof saaxiib kula ah wax isla samaysaan ama inaad qorshahaaga ku soo bandhigtid dadka dhexdooda. halna maskaxda ku hay, marba haddii aad muujiso qorshahaaga ama shaaciso waxay u badan tahay in aad ku dadaasho hirgelinteeda. marka si guud waxay tani ku saabsan tahay fulinta qorshayaashaada iyo inaad taageero u hesho. dabcan waana in aad dadka kale ka helaysid dhiirigelin guul kuu horseeda. qodobka afaraad, in aad ka adkaato waxyaabaha keenaya ama kugu keeni kara guuldarrada. qodobkani waa qodob muhiim ah, si fiican ila soco. tusaale ahaan, marka ay sii wadista qorshahaaga kugu adkaato, ka fikir sidii aad dib u eegis mar kale ugu samayn lahayd qorshahaaga adigoo isweydiinaya su'aalahan: maxay yihiin caqabadaha ku soo wajahay? waa kuwee ama waa maxay kuwa ugu adag? maxayse yihiin kuwa ugu fudud? isku day markaa in aad khafiifiso qorshahaaga si ay suurtagal u noqoto in qorshahaagu markaas uu u noqdo mid sii socda ama guulaysta. dabcan isbedelada yaryar ee aad ku samaysid nolol maalmeedkaaga ayaa kaa caawin kara in aad jihada saxda ah dib u heshid. qodobka shanaad, qorshayaashaada waa inaad ku astaysaa ujeedooyin waqti dheer leh. maxaan uga jeedaa? tusaale ahaan, meel dhow keliya ha ka fikirin. waxaan uga jeedaa shaygu markuu yahay shay laablakac ku dhisan, dabcan meel fog ma gaarayo, suurtagalna maba aha inuu gaaro. qorshayaasha la dejisto ee ugu wanaagsan waa kuwa looga gol leeyahay waqtiga dheer oo aad doonaysid in ay noloshaada wax ka bedel ku sameeyaan, waxayna ka fiican yihiin kuwa aan la hubin iyo kuwa laablakaca ku yimaada, haba noqdaan kuwa dhow. ugu dambayn, dadka qorshayaashooda ku saleeya laablakaca badanaa way ku guuldaraystaan. marka haddiiba aad haysatid qorshe ku saabsan wax aad doonaysid ama aad xiisaynaysid, u samayso qorshe maalinle, usbuucle, bille amaba sanadle, ku doonaba ha ahaadee. wax cabsi ahna yayna kugu beerin caqabadaha laga yaabo in ay kusoo wajahaan inta aad fulinta dadaalka qorshahaaga ku guda jirto. shantan hab ama shantan arrimood ee aan kor kusoo xusay haddaad dhaqan geliso oo aad ku dabaqdo noloshaada, allah subxaanahu wa tacaalaana la kaashato, wax badan ayay ka bedeli doonaan noloshaada. dabcan sanadkuna wuxuu kuu dhammaan doonaa iyadoo ay kuu suurtagaleen qorshayaashaadii, xitaa haddayna kuu suurtagelin dhammaantood kuu dhowdhow yihiin oo mid walba uu meeshii saxda ahayd ama boyntigii saxda ahaa ee ahayd in aad gaarto uu u dhowaaday ama wax yar uu u jiro. markaa insha allah qof walba oo naga mid ah waxaan u rajaynayaa inuu allah subxaanahu wa tacaala u fududeeyo qorshayaashiisa. dabcan mawduucan halkan ku egyahay, waxaadna naga daawanayseen ama nagala socoteen Saacid Tube. waxaan naga xasuusinaa haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo boqoto channelkeena, fadlan subscribe dheh, siina share garee si uu u gaaro saaxiibo badan ugana faa'iidaystaan. mahadsanid.